waxaa la yidhi dhurwaabaa goor habeena wuxuu u soo hilbadoontay dudda ruuman doogle intay degtay ku baraadhay. habeenkaasna inta xoolihii maashay soo xeraysatayoo iska sheekaysanaysa. xeryaha xooluhu ku jiraan tii uu u dhici lahaa intii aanu go'aansan ayaa dhurwaagii wuxuu dhegta u dhigay haweenay tu kale u sheekaynaysa oo ka calaacalaysa 2 gu ka hor ida uu isaga qudhiisu ka laayay. markaas buu isaga tegayoo qoys kale oo isdudada ah u cibil galay. sheekadii dadka ayuu dhegaystay. mase waa haweenay kale oo iyaduna habaar ku daldaraysa dhurwaa beri ka candhagooyey sacmadi ah oo ay jeclayd. taasina waxay ahayd dhacda 4 gu ka hor ku sinayd. dhurwaaga ay habaaraysaana waa isla isaga. afar qoys oo kale ayuu midba mar isdul taagay. ku walbana wuxuu ugu tegay dumar isu tanaagoonaya oo neefaf uu waa hore ka cunay dartood hiif iyo habaarba u dhaandhaaminaya. markaas buu goostay ilaah baa wax siiyee diihaalba ha qabee dudadan iyo dumaradeeda gocashada badan inuu isaga tago wuuna ka dhabeeyey. ha yeeshee markii uu goobtaa ka jeceeranayay ayuu naftiisa waxa uu ku quusiyey hawraar uu habeenkaa reebay. waayadii dambana mahmaah laga dhigtay. wuxuu yidhi xoolo dumar haddii aan xoolaha ka aqaan ma cuneen. taasoo ay ragga Soomaalidu haweenkooda ku xafaaleeyaan amaba ay xusuustaan mar walba oo lixajeclada xaawalayda ay sheekadu joogto.